بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد walaalayaal guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu bishaareynaa hadii Ilaahay yiraahdo caawa oo taariikhdu ay tahay 23ka bisha shanaad 2020 kuna aadan hijrada nabiga sallallahu alayhi wasallam kun 441 hijrada bisha ramadaan ay tahay soddon ay ahaan lahayd maanta 29 ay ahayd waxaan dadka muslimiinta ee Soomaaliyeed af Soomaaliga ku hadla ugu bishaareynaa meel kasta oo joogaan in ay tahay bari ciid ay tahay maalintii koowaad ee bisha Shawaal ugu horeysan ay tahay arintaas iyada ah waxa aan ku hubinay kadib markaanu galay baxsi dheer aanu galay taniya maghribkii markii la afuray waxaan ugu soo dhacay warar sheegaya bishii la arkay xilligan hadda aad aragtaan waa afartii habeenimo ah waxaan la soo gaarnay waxay ahayd inaan hubino dadka bisha arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam sida uu sheegay bisha aragtida lagu soomayaa aragtida waa lagu afurayaa laakiin bisha hadii la arki waayo oo roob iyo xasaas loo arki waayo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fakminu shahr oo kama qaal sallallahu alayhi wasallam bisha dhamaystira marka meelaha qaar kood markii la sheegay in laga arkay ilaa muddada 4 saac waxaan ku jirnay hubin iyo inaan dadka muslimiinta ah warka la sheegay aan soo hubino muddada dheer kadib waxaa noo soo cadaatay bishii in ay sugnaatay aragtideeda gobolka Jubbada Hoose waxa laga arkay ilaa 3 meelood ilaa 4 meelood baa laga arkay meesha koowaad laga arkay waxa weeyaan tuulada Xayo oo gobolka Jubbada Hoose ku taala kana mid ah degmada Afmadow waxa arkay Ciise Abdullah Xaaji Ahmed iyo Karaani Faysal Adam labadaas nin ayaa arkay laba gabdhoodna waa la sheegayaa laakiin dadka aan afkooda ka hubinay oo gudoomiyaha degmada Afmadow uu isaga ka hubiyay labada qof baa kamid ah sidoo kale waxa la sheegay degmada Qooqaani in laga arkay laakiin qofka isaga ah ma aanas uusan hor imanin yaani budiga barnaamijka isaga muna hor imanin sidoo kale tuulada Taabta waxa ka arkay ninka la yiraahdo Ali Maxamed Abdul Karim Ali Maxamed Abdul Karim waa la dhaariyay kitaab Quraan ayaa lagu dhaariyay meelaha laga arkay waxa kamid ah meesha la filfila oo tuulada Buulaxaaji ku taala iyadana waa laga arkay bisha odayaal aan magacooda la ii soo qorin oo lagu kalsoon yahay ayaa runtii arkay baa la yiri laakiin maadaama xilli dambe ay tahay magacyadooda iyo lambaradooda la ii soo gudbinin meesha la yiraahdo Taabta iyadana waa laga arkay bisha waa meelaha runtii laga arkay Jubbaland bay kamid tahay waxa kamid ah meelaha laga arkay waraha Doobley oo Bu'aala agteeda ku taala runtii taas ma aysan anaga noo suurta gelin in maxaan ku dhahay anagu aanu ka wasaarad ahaan aanu la xiriirno laakiin inta kale oo dhawaa hubinay maxaan ku dhahay inay dad yihiin warkooda la qaadan karo dadkaas laba qaybood bay isugu jiraan qayb kamid ah waa dad la yaqaano oo umana ah oo in la dhaariyo aan u baahnayn qaarkii marka iyada aanan aqoon u lahayn oo maxaan ku dhahay anagu aanan markaas taskiin kareynina ka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubbaland waxa la mariyay kitaab Quraan oo waa la dhaariyay runtii inta badan gobolada Jubbooyinka waa laga ciidayaa bari meelaha runtii la sheegay in bisha laga arkay waxa kamid ah meesha la yaqaano Gamboole oo Jubbada Shabeellada Hoose ah laakiin dadkii arkay nin kamid ah la xiriirnay isagana Allah yaclam wuxuu yiri bisha waan arkay ma Ilaahay baa kuwa bishiina artay baan niri isaguna uu noo dhaartay wuxuu yiri waan arkay bishii maxaan ku dhahay laakiin de shakhsi aan soo naqaan ma inta dadka waxa kale tiraan dhaarina meelaha laga arkay oo noo sheegay waxa kamid ah ufurow
oo ka mid ah gobolka baay iyadana waa laga arkay sidaa darteed dadka muslimiinta maadaama la yidhi suumuu liru'yatihi waftiruu liru'yatihi ku sooma aragtida bisha kuna afura aragtida waxaan ummadda muslimiinta ugu bishaaraynaynaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee matlaca wadaagta ama geeska afrika ku nool inay tahay berri ciid ayna sugnaatay bishii shawaal in la arkay in bishii shawaal la arkay way sugnaatay haddii ay tahay wax iskaga degdegayo oo iyadoo la hubin la iska gelayo waxaa la geli lahaa maqribkii markii laga soo baxayba ama cishaagii baa la geli lahaa laakiin ilaahay saacaddaas mutaakhirka ee aadka u dambaysa waxaana gaarsiiyey inaan hubinno iyada oo guud ahaan mas-uuliyiinta maxaan ku dhahay hawshaas ay khusayso ay ka wada shaqaynayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maxamed yuusuf cumar iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxaan ku dhahay guddoomiyaha degmada afmadow oo isagu ninkii wasaaradda wakiilka uga ahaa dadkaas arkay intuba runtii waxa weeyaan waxaa la isla qiray in bishii la arkay marka dadka muslimiinta waxaan ugu bishaaraynaynaa bishii ramadaan inay dhammaatay isla markaana bishii shawaal ay noo bilatay berrina ay tahay ciid mubaarak waxaan marka insha allahu tacaala rajaynaynaa in insha allah aad ku ciidi doontaan ciid farxad leh oo wanaagsan oo aan lahayn maxaan ku dhahay buuq iyo qaylo toona iyo khilaaf sababtoo ah dadka muslimiintiihi waxay isu yihiin waa shuhadaa ullahi fi lardi qof muslim ah oo 29 kala soo soomay inuu maanta dadka oo dhan wada afuriyada dee inta badan maba wax macquul aqligu ma keenayo hal qof oo kale haday tahay suuragal laakiin meelaha qaarka waxaa la sheegayaa 10 qof baa aragtay waraha dheerli oo kale 15 qof baa la dhaariyay baa layidhi waraha dheerli oo kale 15 qof baa la dhaariyay baa layidhi marka insha allahu tacaala arrintaasaan insha allah aan si officially ugu dhawaaqaynaa aad iyo aad baad umahadsantihiin wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan leenahay masaajidda takbiirta ha laga qaado insha allahu tacaala si xaafadooda ay ogaato inay tahay berri la ciidayo aad iyo aad baad umahadsantihiin assalamu calaykum